agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed ayaa ka gudoomay qaar ka mid ah farmasiyada ku yaala magaalada Boorama deeq daawo ah oo ay ugu deeqeen bukaanada ku jira cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama. Dr. Ismaaciil wuxuu uga mahad ceshay farmasiyada daawada keenay wuxuuna ka codsaday farmasiyada kale ee ku yaala magaalada in ay ku daydaan saaxiibadooda daawada ugu deeqay cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama. Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed oo arrimahaas iyo baahiyaha kale ee cusbitaalka dhimirka ka warbixinaya waxa ka mid ah hadaladiisii. Saaka waxaa kelmadii kooban aad u kooban oo mahadnaqa halkan uga jeedinayaa bahda farmasiyada magaalada Boorama oo halkan uu joogo maanta wakiil ka yahay Cawil Sheekh Ibraahim oo isaguna shaqaalaha isbitaalka Boorama caafimaadka waliba farmasiyada qoyska ugu muhiimsan ku jira runtii waxa loo mahad celinayaa saxaqaamka bani aadminimo islaamnimo ee ay sameeyeen halkan waxa ku yaala waarkii mentalka ama dadka dhimirka qaba la dhigay runtii waa waad dhawaan la dhisay way community u dhisay dibadooda iyo wixii gudaha ka qayb qaatay ay dadku dhisay codsanay in farmasiyadu ay naga caawiso hawshaas oo ay at least daawooyinkooda nin walba wuxuu bixiyaba inta aanu helayno cid naga kafaala qaada waa hay'adaha ama wixii kale wax ka raadinayna intaan helayno in ayagu naga kafaala qaadano inta runtii way shaqaameen dadaal badan bay sameeyeen inkastoo farmasiyada magaalada ay aad u badan yihiin oo haday gacan nin walba gacan qaado ama sanadka soo socdayna inay dawadeeda sanadan hal mar oo gacan qaada sanadan ay ku filaanayaan haddana kulay waxaan arka uga mahadnaqayaa intii dadaalka gashay shaqaatiir raadisi waa uu koob yahay iyo Xuseen Shaawasayo Cabdi Cali dadkii markaa gurmud ka hay hawshaasi qaban qaabinayay iyaga gaar ugu mahadnaqo hadda halkii waxay hor yaala dadka ma taqaana farmasiyadii inta ku soo deerday oo sida uu kala muhiimsan yahay dalka horeeyo Sheekh Ibraahim Farmasi Cawil oo ninkan soo wariyay number 1 waxa ku jira Cabdi Cali in la isla yiraahdo isaguna ma taqaana bedel farmasi isaguna amood badan halkan ku keenay aad buu mahadsan yihiin waxa ka qayb qaatay Medina Farmasi Shaaca Farmasi iyo Burhan Farmasi waa shan farmasi markay intay horta Allah shan farmasi intay horta Allah waxa filayaa waxa kay iyadana macluubay Aaran Farmasi lixda farmasi ayaa waxa imka ay muuqda inay contribution ka soo saarayaan keenay waxaan rajaynayaa farmasiyadu waa boqolaal ma filayo dukaanada kamera magaalada Boorama farmasiyadu dukaanada kale ka furad kamaya dhammaantood waxaan ku guuleynaa dadka walaalahooda sida ay tahay lixda farmasiyo soo caawiyeen inay iyaguna soo caawiyaan si aan uga maaranno dawa ka gooday in la yiraahdo ilaa inta cid markaa hawshaas damaadkaas la helayo annaguna mas'uuliyahan waan raadinaynaa meel kasta haday u diiwan tahay iyo haday hay'ad tahayba meel kasta wixii u gaarsiinaa quraanka iyo cabashada si at least aan helo daawo joogto dadka loo helo waxa aad iyo aad u muhiim ah dadkaasi waxay ka yimaadeen dadaal dadka ugu faqiirsan ama dadka ugu dhaqaaliita ayay ka yimaadeen wada aad inta badan ma taqaana buura u badan xabada waa loo iibin kareenin koob shaah aan loo shubi kareenin xitaa waxa laga maarmaana inay raashin helaan haddaan isbitaalka raashin haynin oo aan ku joogo taqaan raashin bukaan oo ayu ku sabanaga isbitaalku haynin waxyaabo badan oo imka wixii repairingkiisa iyo waxaan dhex gelin karno biyihiisa korontadiisa wixii aan dhex gelin karno isbitaalka dhex gelina nadaafadiisa isbitaalka dhex gelina wixii u barbaarna kulba wixii ma taqaana soo gala maadaama iyaga wax alla wax oo haynaanay jirin laakiin dadka waxa ka codsanayna at least farmasiyadu inay daawooyinka ku filaadaan dadka ganacsatada kulay baa sadaqado la baxaan oo wax badan bay bixiyaan oo soo bixiyaan dadka ka habboon siin lahayn inay jirin in raashinka ka caawiyaan baniga ka codsanay dhagiisana waxa ku hadlay magaca farmasiyada ku deeqay daawada loogu talagalay bukaanada ku jira cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama Cawil Sheekh Ibraahim oo kamid ah farmasiyada ku deeqay daawadaasi Boorama degmada Boorama ka socdaan ku hadlaya afkooda qayb waxa wada in shan farmasi ka kooban oo ugu horeeyo Sheekh Ibraahim Farmasi ama Cawil oo bedel farmasi
sidoo kale aaran burhaan iyo madiina farmasi runtii farmasiyadaasi waa farmasiyaan aad iyo aad ugu mahadnaqayo walaalaheena kale farmasiyada kale leyna ay insha allah ay ku dayan doonaan sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anigoo bahdi caafimaadka ka mid ah inaan haddana kusoo wareejiyo ama aan deeq uga soo wareeyo mucaawinaa masaakiinta halkan walaalaheena ama maskaxda dhimirka wax ka qabta aan ku wareejino dawadan oo dawooyinkii dhimirka ama maskaxda uu joogo agaasimo isbitaalka iyo maxaan ku dhahaa maamulkii isbitaalka oo dhan sida Ismaaciil iyo Fuusiin Muuse runtiina waxaan hadal badan waan sii gali maayo waxaan ku wareejay maamulkii isbitaalka dawadiina halkaas ay hortaala sidaas oo kale insha Allah bilowna ma tan waa bilow laakiin wixii ka dambeeyo dhan wanka hawl kala doona insha Allah hadii Ilaahay qadaro si kastaba haatee markii ugu horeysay ee daawo ay ugu deeqaan farmasiyada ku yaala magaalada Boorama qaarkood bukaanada qaba xanuunka dhimirka ee ku jira waadhka dhimirka ee cusbitaalka magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good